السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada asxaabteeda kusoo dhawaada janalkayga Nasra Carfaayo Cooking Channel. asxaabteeda xasameysanayna maanta insha Allah muxuu ahaa isheeg canjeero sida ugu fudud ee loo sameyn karo canjeerada. muxuu ahaa isheeg canjeeradan waxyaabo badan ay faa'iido u tahay. waa canjeero nafaqeysan, waa canjeero aan lagu dari doonin wax qamiir xitaa cajiinka caadiga ah Allah ka dhigay ma lagu dari doono. leebitaan lagu dareen, cajiinaan lagu dareen insha Allah wax qamiir ah ma loo dhaweyn doono. hadeertaan qasi rabo canjeerada waa 2 saac habeenimo. waxaa dubi doona hadoo ilaa idmo beri subax insha Allah. quraac waaye isla socod wanaagsan insha Allah. bismillah. canjeeradan waxay ka koobnaan doontaa meeshan waxaa ku heystaa 3 koob oo bur ah. koobkan oo shaah lagu cabo oo mar walba ku cabiro burka ayaa ku soo cabirtay. sidoo kale waxa ku heystaa meeshan koob caano ah, waa caano qandac ah oo diiran. sidoo kale meeshan waxa ku heystaa hal sacab qiyaas ahaan oo muxuu ahaa sacabkana aad aan u buuxin adiga. qandada qiyaasteeda kana oo ku soo cabirta oo qamadi shiidan ah. iyo waxa meeshan kale ku heystaa xabad ukun ah. bismillah. hadeertaan waxaa bilaabaneynaa qasitaankeena. qasitaankeena noo bilaabmi doono insha Allah. waxaa ku shuban doonaa marka ugu horeysa xabada ukunta aheyd. kadib waxaa ku soo darsan doonaa 3 qaando oo sokor ah. 3 qaando sokor ah. qaandada waa qaandadaas. sidoo kale waxaa ku darsan doonaa qaandada afkeeda hore oo cusbo shiidan ah. waxaa ku darsan doonaa caanaha tartiib ugu soo dareysaa. hadeertaan waxaa ku darsanaa qamadii shiidnaay. canjeeradan ma lagu dari doono wax qamiir ah insha Allah. dadka gaaska qabo, dadka neceb waxyaabaha oo qamiir ka sameysan sida anigoo kala ma cuno canjeero cajiin aan baleebata aan wax saas ay lagu daro. sidaana u qastaa canjeerada sidaana u qastaa. waxaan isdhahay marka asxaabtaada iyagana la wadaag. aniga waa ka hele tijaabi adigana insha Allah. hadeertaan waxaa ku soo darsanaa burkeen insha Allah. caanaha waxaa dareemaa inaysan igu filnaanin. waxaa ku soo darsan doonaa nus koob insha Allah. hadeertaan waa soo garaaci doonaa insha Allah. sida caadiga cajiinka canjeerada loo garaaco waa soo garaaci doonaa. waa isku soo laabaneynaa insha Allah. xabteeda hadeertaan oo ujeeda waa soo garaacay si fiican oo soo garaacay. way isdhex galeen muxuu ahaa ishad burka iyo waxyaabihii kale. hadeertaan waxaa ku darsanaa waxyaar oo far isul camle oo qarfo shiidan ah. laakiin qarfana isticmaala anfac qarfo waa ujeeda qarfaasa isticmaala si caraf oo noogu sameeyo insha Allah. caanaha nus koob kala ku soo darsaday waa isla caano qandac ah insha Allah. canjeeradan habeenkii iska qaso iska dawaalo subaxdiina canjeero fresh ah wax qamiir aan lahayn nafaqeysan. wala caruurta iyo dadka waaweyn aad ay ugu fiican tahay canjeeradaniiti. idinkana soo tijaabiya insha Allah. aniga aad ugu hele saas darteeda idin la wadaago yaabo. waa ujeedaa xir xadareema inay adag tahay. hadeertaan qasitaankeena wuu noo dhamaaday. waa daboolanayna insha Allah. waa inoo berito caafimaad noo gaarsiiyo insha Allah. waa ujeedin sida u qurux badan tahay kalarkeeda. laakiin quruxdeeda hadda ma laga sheekeyn karo. beriya isla arkeena insha Allah. asxaabteeda
bacaa gashanaa bacdaada iska gashane tartiibtaada iska daboolane بريت إن شاء الله يصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح وناكسن أصحابتي إذا إن حقصلا وني عجين كني أقصنا عن بعنجرة حليتو هدرتنا قصلا وني إن شاء الله حفيرنا الناس إذا نوصل صباحي. بسم الله ما شاء الله. أصحابتي إذا وأوجدين canjeeradeena sidaan quruxda badan inoogu soo baxday indhahaas yaryarkee bixisay ujeedaa sida qurux badan tahay. hadeertaan birtaa dabka saarneena waa duwaneena insha Allah. waxaa arkeynaa sida quruxda badan inoogu soo baxday. waata asxaabteeda hadeertaan waxaa birta soo saarnay dabka. waxa sugeynaa insha Allah intay noogu soo kululaanayso. waata asxaabteeda hadeertaan birta ay noo soo kululaatay waxaa ku bilaaban doonaa xabadkeena koowaad ee canjeerada insha Allah. xeer masaxaa sidaas ugu jiiday. bismillah ما شاء الله. asxaabteeda oo ujeedaa sida qurux badan tahay. gadaasheedana waa ujeedaa sidaas ay qurux badan tahay. laguma darin wax cajiin ah iyo wax leebata ah. hadeertaan waxaa idin tusinaa xabadkeena labaad. asxaabteeda canjeeradan soo tijaabiya waad ka heli doontaa insha Allah. muxuu ahay sida hore idinkugu soo sheegay ma lagu darin wax cajiin ah, wax qamiir leebato fixiso amba qamiiriso sidaad u taqaanidba. waa burkii, ukuntii, cusbadii, sokortii iyo muxuu ahay ishak caanihii qandac ahay bes wax ka dheeriya oo lagu daray malahan wax gaas ah. ma dareemeysid wax in caloosha kusoo fuureyso oo kaleento. subaxdii haddaa ku quraacatid labadaada xabo ama saddexdaada xabo canjeera wax walba ku cuni kartaa. muxuu ahaa ishag qadadaadana waxaa ku cunay haddana si nadiif ah insha Allah adigoo dareentay baahi. muxuu ahaa ishag adigoona dareemin wax oo dhibaato kaleento ah. insha Allah aan aada uga hel canjeerada idinkana soo tijaabiya insha Allah. hadeertaan waxaa noo soo bislaatay xabadkeeni kaleento. asxaabteeda sidaana kusoo wada dhameen doona waa isku soo laabaneynaa insha Allah. waata asxaabteeda quraacdeen quruxda badan sidaan inoogu soo baxday canjeeradii waatana sidaan u qurux badan tahay. waa canjeero caafimaad leh insha Allah idinkana tijaabiya. meesha waxaa ku heystaa oodka waxaan oo muxuu ahaa ishaag yaryarka ugu jeediyaan cadaankan waxaa waaye qarf heel ku qurxiyay. meesha waxaa ku heystaa kajab yar oo kabsar caleen korka ugu soo qurxiyay. sidoo kale meesha waxaa ku heystaa koobka shaaxa. insha Allah caafimaadku cuna inta heysana Allah siiyo anagana Allah noo siyaadiyo. inta ku kulmi doono muuqaalka xiga waa walaashiin Sara Carfaa idinkaga tagaysa khayr iyo caafimaad bashbash iyo barwaaqo insha Allah.